kulanti wanaagsan meel walba aad joogta halkana waa dunida 24 ee ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan uga hadli doono warar la xiriira wadanka Turkiga iyo saameynta uu ku leeyahay arinta caqabada iyo culayska uu dunida hadda soo food saaray ee laga wada argagaxsan yahay ee la xiriirta in wadanka Ruushku uu joojinayo qamadinkii iyo heshiiskii uu horay Erdogan u soo dhiraandiriyay ee ay wada gaareen Ukraine jamciyada qurumaha ka dhaxaysa Ruushka iyo Turkiga sida barnaamijkii kan ku horeeyay aan idinku sheegnay Turkigu Ruushku waxa uu sheegay sida afayeenka dawladda iyo afayeenka aqalka madaxtooyada criminalka labaduba ay sheegeen in ay midna waxa uu sheegay inay ka bixin heshiiskaas kuna wargeliyeen wadamada Turkiga Ukraine iyo jamciyada qurumaha ka dhaxaysa halka ay madaxtooyaduna sheegtay in hadii wax laga bedelo oo isfahan iyo nidaam sax loo yimaado Ruushku uu diyaar u yahay cusboonaysiinta heshiiskaasi iyo in markale la kordhiyo heshiiskaas arintaasi walbahaar ay saacadii la soo dhaafay dunida iyo walwal ka dhalisay sababtuna waxay ahayd muhiimad weyn ayuu qamadinka wadanka Ukraine ka imanayay ee badda Mediterranean-ka marayay uu u leeyahay dunida iyo waliba dhoofinta raashinkaasi oo meelo badan hay'adda jamciyada qurumaha ka dhaxaysa ay geenaysay oo dadka masaakiinta la geenay waxa ay haddana tani ku soo aaday maalmo kadib markii ay jamciyada qurumaha ka dhaxaysa sheegtay inay cunno yaraan aad u badani dunida soo food saartay wadamo badan oo dunida ana ay dhibaato ku hayso iyaga oo sheegay in sanadaha soo socda ay arintan ama bilaha soo socdaba culayskaas iyo caqabadaasi taagnaan karto waxayna u sababeeyeen dagaalada roob la'aanta iyo caqabado kale oo uu kamid yahay qaaliyowga siidhka oo isna aad u qaaliyoobay dunida sida ay hadalka u dhigeen taas micnaheedu waxa ay ku tilmaameen inay tahay in uu aad u qaaliyoobi doono raashinka ee kala duwan ama dalagyada hadii aan wax laga qabanin loo baahan yahay in hadii aan wax laga qabanin arintaas ay khatar noqon doonto loona baahan yahay wax ka qabasho degdeg iyaga oo taasi ay taagnayd ayuu barnaamijkan idin soo gudbinay wadanka Ruushku saaka ku dhawaaqay saacado gudahood oo dadku isweydiinayaan maxaa laga sameyn doonaa arintaas yey kula dagaalayaan Erdogan iyo Putin amayna iyaga laftoodu hadda waxba ka qaban doon arintaas waliba ilaha qaarkood ay sheegayeen in Erdogan ba heshiiskaas markii hore taba soo dhiraandiriyay mar hadii isagii iyo Putin ay maanta isku aragti ka ahayn arrimo dhowr ah oo qadiyadaha diblomaasiyadda reer galbeedka la xiriira oo ay kamid tahay inuu Erdogan u xuubsibtay ama dhinacaas uu u janjeersaday inay culayskeedu wali sii taagnaanayso laakiin war la yaabay oo aad u weyn oo mar kale dunida uu ku soo jiitay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayuu jeediyay isaga oo qabtay shir jaraa'id xilli uu u socday wadanka Sacuudi Carabiya oo booqasha ay uga bilaabatay madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo halka ka sii anba qaadayo dadaalada wadankiisa ee ku saabsan in wadankiisu uu helo dhaqaale ku filan oo uu kaga baxo dhibaatada iyo caqabadaha maalmihii la soo dhaafay ama sanadihii iyo bilihii la soo dhaafayba dadka wadankaasi ay sida weyn uga hadlayeen una ballan qaaday xilligii doorashada inuu wax ka qaban doono arinta xiriirka iyo calaqaadka wadamada reer galbeedka caadiyiinta xiriirkooda la yeeshayna loo arko inay ugu horeyso dadaal uu ku doonayo wax ka qabashada dhaqaalaha liicay ee wadankiisa madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in walaalkiis saaxiibkiis sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu doonayo in uu sii wado marinkan bini'aadamtinimo inkasta oo horay hadalka Moscow horay idinku soo sheegnay uu soo baxay saaka Erdogan wuxuu leeyahay walaalkay Putin diyaar buu u yahay sii wadida arintan bini'aadamtinimo ee la xiriirta qamadinka dhoofintiisa iyo in la mariyo Mediterranean-ka isagu waa ka go'an tahay waa ka diyaar laakiin arrimo ayaa halkaas ku jira hadalka uu sheegay Dmitry Peskov afayeenka criminalka laftiisu way u muuqatay inay wax tabanayaan go'aan aysan ka ahayn
in ay joojiyaan arrintan iyada waxa uu hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay Istanbul ka hor inta uusan madaxweynaha wadanka Turkiga u duulin ama aysan u bilaabanin safarka wadanka Sacuudi Carabiya uu ku tagayo ama uu ku tagay halkaasi oo kulamo kala duwan boqortooyada Sacuudi Carabiya kula yeelan doono Moscow ayaa horay u sheegtay in dalkeeda uu si rasmi ah ugu wargeliyay Turkiga Ukraine iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa in uu joojiyay wadankeedu oo uusan kordhin doonin heshiiska dhoofinta qamadiga taasi oo barnaamijkii hore aan idinku sheegnay caqabada ay leedahay iyo sida ay dunidu u arkaysay xilligaas intaba madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga Hakan Fidan uu khadka teleefanka si toos ah isla maanta ugula hadli doono dhigiisa wadanka Ruushka Sergey Lavrov ayna ka wada hadli doonaan arrimaha la xiriira xaaladan soo kordhay dejinteeda iyo sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa xaalkuna uu noqon lahaa sidii hore Erdogan madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa waxa uu isaga laftiisu cadeeyay in uu la hadli doono marka uu ka soo laabto safarka wadanka Sacuudiga uu ku tagay Vladimir Putin madaxweynaha wadanka Ruushka ayna ka wada hadli doonaan arrimahan iyo sidii loo dejin lahaa ugu yaraan madaxweyne Erdogan durba arrintii waa u galay saacado kadib waxa uu go'aansaday in arrintan uu wax ka qabto wax laga bedelo kor loo qaado oo aysan arrintani noqonin mid caqabad iyo dhibaato ku noqoto dunida aysan noqonin tacab khasaar wixii shalayta uu ku dadaalay ee dunida oo dhan iyo Putin oo isdiiday isagu intuu ka shaqeeyay uu ishor keenay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Ukraine iyo Ruush oo uu ku guuleystay in arrintaas iyada xal waara oo rasmi ah loo helo mar kaleeto ayuu iska dhigayaa hogaamiyaha aan la dhayalsan karin ee dunida mar kaleeto ayuu tusayaa inuu yahay siyaasi saameyn leh oo firfircoon oo waxa uu doono qaban kara waxa uu doonana diidi kara inkasta oo horay midaas iyada u tusay mar kale ayaa waxa uu tusinayaa dunida inuu yahay isku xiraha xilligan ee Ruushka iyo dunida inteeda kaleeto ama reer bariga iyo reer galbeedka mar kaleeto ayuu Erdogan siyaasiyiinta wadankiisa iyo madaxda wadanka Turkiga tusinayaa in uu yahay hogaamiye matali kara wadanka Turkiga iyo shacab weynaha Turkiga oo lagu tilmaamo inay kamid yihiin shucuubta ugu qabka weyn dunida marka la fiiri isku soo wada duuduube Erdogan mar kale ayuu guuleystay wad mahadsantiin